haddii la doonayo inay Soomaaliland jirtana faraha laga qaadan ninka faraha laga qaadan leenahay haddaan odaynahay haddaan yarnahay waan u dhannahay arrinka haddii si degdeg looga noqon waayo wixii ka dhaca Muuse mas'uulka reer Hargeysa mas'uulka Maxamed Abiib inuu golaha baarlamaanka ku jiro iyo gobolkan Awdal inay Soomaaliland ka mid ahaato waa laba qodob oo isku xidhan weeyaan haddii la taabtay halbowlaha lana taabtay haddii la eegay halbowlahana la eegay awdalna barti la ascaanood inay marto maaha waxaan u sheegaynaa waxa weeyaan in laga digtoonaado Maxamed Abiib xildhibaanka halka lagu haysto haddii loo jeedo habar cafaan oo in laga qaado saddexda kursi ay meesha ku leeyihiin haba kama qabno haddii la doonayo inay Soomaaliland jirtana faraha laga qaadan ninka faraha laga qaadan leenahay haddaan odaynahay haddaan yarnahay waan u dhannahay haddaan haweenahay waan u dhannahay habar cafaan way u dhantahay inanka hadalkiisa waana ku soo soconaa Hargeysa haddii faraha laga qaadi waayo inanka mooshin baa la sheegayaa warda bilaatood ma ninku tab buu leeyahay ballaaran buu leeyahay 12 qabiil buu ka soo jeedaa annaga u soconna waa lagu kala guri doonaa Soomaaliland haddii faraha laga qaadi waayo inanka waxaan aad iyo aad uga xunnahay ka dagaalamaynaa ka xunnahay dumar iyo carruurba haddaan raawdanahay xildhibaanka Maxamed Abiib Yuusuf awalba la xagan jiray laakiin dib loogu waayintaasi maanta ta soo baxday warraggii ciidankii Soomaaliland rogay maxaa xil loo qaadi waayay maxaa loo muxuu ahaayeen maxkamadeyn waayay raggii ciidankii Soomaaliland rogay waxaan leenahay arrinka gobolka Awdal haddaan nahay waa kii la wada guurayay arrinkaasi wuxuu ka socdaa badii buu daba socdaa Maxamed Abiib wuxuu noqday salaankii badda loo soo raacay saasuu yahay miya waxa weeyaan arrinka haddii si degdeg looga noqon waayo wixii ka dhaca Muuse mas'uulka reer Hargeysa mas'uulka wixii ka dhaca arrinkaas Maxamed Abiib waa gobolka Awdal waa Salal waa Soomaalida waqooyiga Soomaaliland waxaan leenahay arrinkaas si degdeg looga noqdo waxa weeye ujeedada beelaha habar cafaan halkan iskugu yimiday laba qodob bay daarnayd qodob waa mid ay aayahooga iyo mustaqbalkooga siyaasiga kaga tashanayeen qodobna waa qodob wuxuu ahaa arrinta Maxamed Abiib ee taagan lagaga hadlayay waxa weeye kamid ahaanshaha gobolkan Awdal ee Soomaaliland iyo matalaadda xildhibaan Maxamed Abiib way isku xidhan tahay Maxamed Abiib inuu golaha baarlamaanka ku jiro iyo gobolkan Awdal inay Soomaaliland ka mid ahaato waa laba qodob oo isku xidhan weeyaan waxa weeye arrinta Maxamed Abiib sidan aad u dhayarsanaysaan maaha Maxamed Abiib codkayagii sharafkayagii karaamadayadii ayuu huwan yahay maalin kasta in haldoorkayaga iyo dadka mudakarka iyo dadka ma taqaanaa ee birimageydada magaalada Hargeysa lagu bahdilo la jiijiido kuxii laga qaado kuwiga uga soo la celiyo haldoorkayaga iyo waxgaradkayaga iyo ma taqaanaa ummadan ma taqaanaa cidii hogaaminaysa indhaa wahayd maalin kasta inay ma taqaanaa hab qabiil loo bahdilo waxaan u dul qaadanayna maaha laba qodob bayna taagan tahay arrintu sida odayaashuba hore u yiraahdeen inuu gobolkan Awdal ka mid ahaado Soomaaliland iyo matalaadda Maxamed Abiib waa laba qodob oo isku xidhan weeyii intaas ka baxaya Maxamed Abiib janan baa shalay ugu hanjabay qoortanka kaba kuleeg baan ku tali mara kuleeg baan ku tali shaar kuleeg baan ku tali maxkamad lama soo taagin oo ahayd waanu ku dili waxa jira kornaylo dirayskii qaranka sita darajadoodii sita nabadgelyada qaranka Soomaaliland ka shaqeynay oo reer Awdal oo waliba habar cafaana oo la laayay oo cid halkii ka soo qaadi wayday cid wax maxkamad saari wayday waxa jiray oo kale miisaaniyadihii iyo masabyadii Soomaaliland oo reer Awdal ku lahaayeen oo mar walba la boqnogoynayo kulmiye wuxuu bareeray inuu Awdal jaro inuu Awdal Soomaaliland ka saaro janankii ciidanka boqnogoye Soomaaliland ilmaadeernimo ayaa madaxtooyada uga laba jeer noqdaa dawladii faashilnimada qaranka Soomaaliland fashishay iyada maxkamad loo soo saari waayay Maxamed Abiib waa labeenta Soomaaliland waa labeenta reer Awdal waa hormoodka reer ummadda galbeedka Soomaaliland haddii la taabtay halbowlaha lana taabtay
haddii la eegay halbowlahana la eegay maxamed abiib iyo annagu mid baan nahay okay waxa weeyaan waxaan maalmahan u dambeeyay taagan dacwad laga gudbiyay xildhibaan maxamed abiib horta marka hore xildhibaan maxamed abiib waxa weeyaan waa xildhibaan ku fadhiya codka shacbiga reer awdal khaasatan wuxuu ku fadhiyaa codka beelaha habar cafaan waxaynu ognahay in waqti xasaasiya lagu jiro xukuumadda lafteeda xisbiga kulmiyeyna uu rabo cod ka rabo dhammaan gobolladoo dhan sidaa darteed waxaan marka koowaad ugu baaqayaa xeeraalintu inay la laabato dembiyada la sameeyey ee lagu soo oogay xildhibaan maxamed abiib haddii halkaas soo dhaafto waxaan u sheegayaa baarlamaanka oo ah aqlabiyadda xildhibaanada mucaaradku inaanay sinaba u aqbalin dembiyada lagu soo oogay xildhibaanka haddaanu nahay dadka reer awdal khaasatan beelaha habar cafaan arrintaasi annagu si mugli ayaanu cambaaraynaynaa waxaanan ugu baaqaynaa in sharciyadda lagu soo laabto shirgudoonka baarlamaanka waxaanu u diraynaa baaq ah inay ku soo laabtaan sharciyada waddanka maanta oo u dambeysay cali xaamid jibriil oo ka hadlay hadalkaad Kenya waxa laga yeelo adagu cali xaamid jibriil oo hadlay laguma diray gobolkan awdal ka mid noqon maayo un dheena waxa weeyaan waxaan dhammaan shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegayaa xildhibaan maxamed abiib inuu ku fadhiyo codka gobolka awdalna barti la ascaanood inay marto maaha waxaan u sheegaynaa waxa weeyaan in laga digtoonaado oo xildhibaanka xasaanadiisa la ilaaliyo baarlamaanka waxaan si gaar ah u tilmaamayaa inay arrintaasi diidaan oo si caadi ah u diidaan oo ay ka hadlaan reer awdal haddaan nahay annaguna waanu diidnay arrintaas waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga xildhibaan maxamed abiib wuxuu ku fadhiyaa codka shacbiga reer awdal khaasatan codadka beelaha habar cafaan buu ku fadhiyaa haddaan nahay beelaha habar cafaanna arrintaasi annagu waanu ka soo horjeednaa waxaan doonaynaa waxa weeye in shuruucda lagu soo celiyo golaha baarlamaanka waxa weeyaan xeer ilaaliyo hadduu xeer ilaaliyo sax ah oo qaranka u adeegayo uu yahay waxa weeyaan raggii ciidamada qaranka soo jabiyay 25 August baa jooga waxa jooga madaxweynihii qaranka oo iyo maxay ahaanay wasiirka arrimaha gudaha oo taladii dalka la fashilmay waxa jooga maxay ahaanay raggii mudaharaadkii waxa weeyaan saraakiisha ahaa ee dumarka laaglaagay ragga xiniya ka goynaya baa jooga waxa weeyaan iyadoo waxa soo dhan la arkayo oo aan waxba laga soo qaaday waxa jooga raggii gobolka awdal caayay aflagaadeynay iyagoo darajo waliba loogu darayo waxaan leenahay baaq dheer waxaan u jeedinaynaa golaha baarlamaanka oo ah codka shacabka Soomaaliland waana aqlibada xisbiyada mucaaradka waxaan leenahay maanta hadii maxamed abiib agtiina lagu gowraco barina waxa weeyaan idinkay inagu soo noqonaysaa baaq dheer waxaan u dirayaa gudoomiyaha baarlamaanka faratoon waxaan leenahay maanta hadii adiga dadkaagii ay ka guureen maxamed abiib dadkiisii way joogan mana aqbalayno in maxamed abiib xilka xayuubin lagu sameeyo waxa ka dhow in xil xayuubin lagu sameeyo madaxweynaha qaranka iyo xukuumaddiisa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.